sidan ula dhaqan mushkiladahaaga 99% waad ku xalin doontaa. aan tusaale yar oo fudud ku siiyay ila fiiri qisadan. wiil shaqaale ah oo miskiina ayaa ku noolaa meel tuulo ah. wiilkan wuxuu lahaa xayn ama koox dameera ah oo ka caawin jiray shaqadiisa. dameeraha waxaa ku jiray hal dameer oo aad u duqoobay. dameerkan wuxuu ahaa dameerka uu wiilku ugu jeclaa dameerihiisa. maalmaha ka mid ah markii wiilka iyo dameerihiisu ka soo laabanayeen safar ayuu dameerkii duqa ahaa ku dhacay god dheer oo jidka dhexdiisa ku yiilay. dabadeed wuxuu bilaabay dameerkii inuu qaylo iyo baroor isu daro isagoo raba in loo gargaaro. wiilkiina wuxuu bilaabay inuu si uun uga soo saaro dameerkiisa godka. nasiib darro si kasta oo uu sameeyey kuma guulaysan inuu samata bixiyo dameerkiisa. markii uu u adkaysan kari waayey qaylada iyo baroorta dameerkii uu jeclaa, cid caawisa oo dameerkiisa kala saarta meeshana waayey, ayuu wiilkii waxa uu go'aansaday inuu dameerka meesha ku aaso isagoo nool. isagoo aad uga murugaysan arrintan ayuu bilaabay inuu ciiddii ku rogo dameerka si uu u aaso. balse arrintii sidii uu moodayey maahee si kale ayay u dhacday. markasta oo uu ciidda ku shubo wiilku godka, dameerku wuu ka gilgilanayay ilaa uu ugu dambayn dameerkii dibadda u soo baxay. haddaba tabtaas oo kale marka ay mushkiladu inagu dhacaan waa inaynu ka gilgilanno si aynu tallaabooyin muhiim ah ugu qaadno dhinaca guusha. mar kasta oo aynu dhib ka gilgilanno casharana ka baranno waxaynu u dhowaanaynaa fikta sare. xasuusnow hal qodob: mushkiladda kula soo daristaa ma aha dhibaatada rasmiga ah. falcelinta liidata ee aad ka bixiso ayaa ah dhibaatada rasmiga ah ee natiijooyinka xun dhasha. noloshaada 90% dhibaatada ku qabsataa waxay ka dhalataa qaabka aad uga falceliso mushkilad aad u yar oo kula soo darista. sidaas darteed ha ku dawaqin dadka iyo xaaladaha kaala soo darisa, sababtoo ah wax awooda male falcelintaada la'aanteed. tusaale ahaan, haddii ay asxaabtaada ama dadka kuu dhow kugu jeesjeesaan oo fikradahaaga iyo mashaariicdaada u arkaan wax liita, waxay ku xidhan tahay qaabkaad uga falceliso. adigu haddii aad aaminto kuna fikirto inay iyagu kaa saxan yihiin, falcelintaadaas qalloocan ayay ka dhalanaysaa mushkiladdu, waxaana kaa fashilmi doona mashaariic aad wakhti badan soo gelisay. taas lidkeeda, haddii aad wax weynba u arki weydo falcelintooda, mashaariicdaadana iska sii wadato, ugu dambayn waxaad arki adigoo fikta taagan, qolooyinkiina kuu sacbinayaan, kuguna faanayaan oo ay leeyihiin hebel ama heblaayo asxaab baan ahaan jirnay, qaraabaan nahay, isu fasal baannu ahayn, deris baan nahay iyo erayo kale oo la mid ah. aad baad mahadsan tahay. fadlan channelka inoo subscribe garee. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.